ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ay ka wadaan afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Jowhar. Abaarihii 11kii subaxnimo ee saaka ee howlgalladan ay sameeyeen ciidanka waxaa looga gol leeyahay sugidda amniga caasimadda Hirshabelle, waxaana si wadajir ah u sameeyay ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle, ciidamada nabad sugidda, ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo ciidanka midowga Afrika AMISOM ee ka howlgala magaalada Jowhar. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Jowhar Gaashaale Dhexe Bashiir Xasan Xalfooy oo kamid ah saraakiishii hogaaminaysay howlgalkan ayaa ciidamada ku booriyay shaqada ay u hayaan bulshada. waxaad u shaqaynaysaan wadadkiina iyo dalkiina saacad kasto waxaa la rabaa in heegan loo ahaado shaqada aad ugu mahadsantiin. waxaan fariin u farayaa dadka shacabka ee Jowhar degan inay ciidanka la shaqeeyaan habeen iyo maalin waxay u socdaan wadantooda amnigooda ayaka ayay u shaqeynayaan. saas daraadeed inay ayaka u shaqeynayaan u fahmaan wixii laab ku jiro ee ka qarsoon ciidanka inay u sheegaan. codsigaas dadweynaha u direynaa. shacabka Jowhar waa shacab nabadgelyo, waa shacab tacab beeraha tabcado, wax burbuleena ma laha. wixii xun ee soo dhex galana inay iska qabtaan ay noo sheegaan wixii aan u jeedi weyn anakana habeen maalin sidaan inaan u dadaalno ayaan rajaynaa. ilaahay tawfiiqna waafajiyo, ciidankeena la guuleeyo, shacabkana waxaan ilaahay ka rajaynaa kii nala shaqeeyo in ilaahay nooga dhigo. aad u mahadsantiin. iyadoo laga duulayo adkeynta amniga caasimadda Hirshabelle ayaa ujeedada howlgalkan waxay ahayd sidii magaalada Jowhar looga ciribtiri lahaa kooxaha falalka amni darrada ka geysta magaalada Jowhar. taliyaha saldhigga booliiska magaalada Jowhar Gaashaale Dhexe Bashiir Xasan Xalfooy ayaa ugu dambeyn ka warbixiyay howlgalladan ay sameeyeen. howlgalka oo maanta aan ka sameynay afarta xaafadood ee degmada Jowhar wuxuu ku saabsan yahay amniga sugitaankiisa maadaama ay nagu soo fool leeyihiin waqtiga doorashooyinka. xaaladaha degmada sida amnigeeda inaan la socono oo gacanta aan ku hayno sidaasaan ka rabnaa. marka insha Allah hawshu waxay ku socotaa amni sugid waa soconaya joogto waayo habeen kasta waa soconaysa iyo maalin kasta mana joogsanayso ilaahay idankiisa ilaa amniga degmada aan xaqiijino howlgalku waa soconaya. doorashooyinka hawshooda ay ka dhamaanayaan habeen iyo maalin saas u taagnaaneen. howlgalladan ayaa waxay imaanayaan iyadoo la filayo maalmaha in soo aadan in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka qabsoonto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Axmed Diite, Hirshabelle TV, Jowhar.